kadib markii dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in doorashada madaxtinimada Galmudug la qabanayo waqtigii rasmiga ayaa waxa deegaanada Galmudug qaarkood ka bilowday qorshayaal la isugu diyaarinayo doorashooyinkaasi iyadoona beelaha qaarkood ay bilaabeen soo xulista xubnaha golaha baarlamaanka cusub ee Galmudug kuwa oo yeelanaya kulamo kala duwan sidoo kalena lagu soo dhaweynayo go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya mid ka mid ah kulamadaasi oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo isla markaana ay ka qayb galeen waxgarad siyaasiyiin ganacsato iyo mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa qaar ka mid ah beelaha degan gobolka Mudug waxay ku soo gudbiyeen xubnaha ay doonayaan inay uga mid noqdaan baarlamaanka lagu wada in dhawaan la soo dhiso iyadoo dhammaan waxgaradka iyo mas'uuliyiintii kulanka ka hadlay sheegeen inay soo dhaweynayaan qabsoomida doorashada Galmudug inay dhacdo waqtiga loogu talagalay sidoo kalena aqbaleen xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya beelahaasi loo soo gudbiyay هذا اللي يراد أنا أقول هذا اللي قويس هذا الكي أما الشخص اللي نفط إذا عطسي أصدق إنه لو سوى شيء أو هذا اللي هلد ما نبغى واسيرنا واستهلان وأنا كسر دوين هذا اللي ما نقولش غيرنا وسول وين يا بقول كي بقول وأنا بحنا يا وأنا إن شاء الله أنا أشهد جاني ولا دقة السلام عليكم ورحمة الله. مدة إيمان تقصدين سيدا يقصدين بقصيمي waxaan rabnaa inay markaas diila guriga noo qof nacbaran ugu dhiibaan kulligeena anfacsiin u gaar uma leh laakiin hal dabagalayo mid ah yaa dadku wuxuu qaban karaa yaa dalkii iyo dalkii iyo diintii wax tari kara taas hal gudbay haddaan leeyahay waxaan la qabaa bixinta nabadoonkii ugu horeeyay waxaan leeyahay walaalayaal waa anu kulleeyda shakhsiyadeeda cod baan ku matalaa codkaygiina waxaan ku darsanayaa qaybta positive-kan ku darsanayaa intaas waa sidaad noo weydiisateen aan kulli anigu hadalka dhiman oo aan istaagay waxa weeye gacmooda jirbax ku wada gooyaan waxaan taa markaan dib uga soo laabtay inaan dhameystirna annaga xilka aadna siiseen waan ka ducaynay waan ka gudoonay annagu baan kaga codsanay xilka naga dhaxeeyo waana siiseen waan ka ducaynay annaguna waxaan la rabnaa shakhsi jooga hadeerta gabadhaas maymuun cali nuur ma la rabnaa xilkaas si kastaba deegaanada Galmudug ayaa laga dareemayaa qaarkood u diyaar garowga doorashada Galmudug inkastoo madaxda Galmudug ay sheegeen inay xilligan la qabanin doorasho